السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka kan isaga ah ee ku lug leh sidaan horeba uga sanqarsiiyey oo ka mid ah barnaamij ka mida dhammaystirkii barnaamijkii ugu horreeyey ee ku saabsanaa xeerka jinsiga iyo haweenka Soomaaliyeed iyo wixii la soon qaada arrimaha diinta, iyadoo aan ognahay daawadayaal inuu xeerkaas isaga ah soo jeedintiisa buuq badan galay, siyaabo kala duwan oo aan qumaneenna run ahaantii loo fasirtay oo la damcay in loogu tarjumo bulshada Soomaaliyeed iyadoo laga duulayo ujeedooyin dhaqan iyo diimeed oo salka ku haya xag jirnimo. tusaale ahaanna afka lagu dhiftay in xeerkaas isaga ah uu durayo oo macnihii banneynayo tusaale ahaan arrinka zinadana ay ka jirto axkaam ku soo ururtay oo macnihii shareecadda islaamka ee lagaga dhaqmo dalka Soomaaliya iyo xeer ciqaabta Soomaaliyeed oo arrinkaas isaga ah macnihii meel ku og yahay. balse run ahaantii markaan u soo noqonno arrinkaas isaga ah, waxa halkaas iyada ah soo geli karta ama bulshada Soomaaliyeed si sarbeeba loogu qarinayaa arrinka ah rajmiga ah oo ay ku soo urureen riwaayaad axaadiid lagu tilmaamay oo bulshada islaamku aanay isku raacsaneen oo arrin kala duwanaanshihiisa leh uu yahay. arrinkaas isaga ah ee rajmiga oo laga wado shiidista ama dhagax tuurka oo qofka zaaniga ah ee muxsinka ah ee xaaska ah laga wado hadduu haween yahay iyo hadduu nin yahayba lagula dhaqmo meelaha qaarkood uu yahay arrin run ahaantii ka duwan xadka zinada ee ku soo ururay qur-aanka kariimka ee bulshada islaamka ah iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed aanay duris arrinkaas isaga ah ka qabin, haddii lagu camal falo iyo haddii aan lagu camal falinba ka sokow, balse leys ku raacsan yahay inuu yahay arrinkaas isaga ah iyo xadkaas isaga ah mid diinta islaamka macnihii gaar ahaan qur-aanka kariimka ku soo ururay, balse xad arrinka rajmigu uu yahay arrin aan xad lagu tilmaami karin, uu yahay cuquubad bulshada muslimka iyo culummada muslimka ilaa waaye hore ee ku kala duwanaayeen, arrinkaa kala duwanaanshuhuna uu weli taagan yahay. cuquubada keliya ee qur-aanka kariimkaana saan tilmaamay ku soo ururtay ee zinada ku lug leh ama ku saabsan ay tahay arrinka ku lug leh ama ku saabsan xadka zinada, kaasoo oo xadka zinada ee qur-aanka kariimka ku soo ururay aanu haba yaraatee kala sooceen qofka zaaniga ah hadduu muxsin yahay iyo haddaanuba ahayn, oo cuquubada ee diintu farayso ee ku soo ururtay qur-aanka kariimka ee tahay hal cuquubo oo ah in jaldi lala beegsado karbaash ama jirdil, balse ay halkaas ka caagan tahay maqnaanshaha xadka yaanan oranin xadka ee arrinka jirdilka ee ragmiga uu yahay mid ka caagan oo aanay jirin cuquubo saan tilmaamay qur-aanka ku soo ururtay. sidaas awgeed waa lama huraan
in bulsho muslima gaar ahaan Soomaaliyeed lagu soo rogin arrinkaas isaga ah ee rajmiga maadaama uu baalmarsan yahay diintoodii uu arrinkaasu yahay tacaddi qofkii arrinkaas aaminsan oo raba inuu fuliyona uu yahay qof xuduudkii ilaahay macnihii ku takrafalay oo ku xadgudbay arrinka labaad waxaa jira daawade kala duwanaansho ama khilaaf arrinkaas isaga ee rajmiga ku saabsan oo ku soo ururay kana soo jeeda madaarista islaamka ee kala duwan iyo madaahibta islaamka way aragtiyo kala duwan arrinkaas isaga ah ee rajmiga ee shiidka ah ee lala beegsado qofka zaaniga ee muxsinka ah ee ku kala duwan yihiin sideedana ay qaacidadu tahay wixii kala duwanaansho ku saabsan inaanu ahayn arrin macnihii ka soo jeeda shariicadda islaamka ah ee dhabta ah aan wadciga ahayn ee dadku aana dhigin balse ka soo jeeda diinta ilaahay lagana akhristo qur'aanka kariimka eena xuduudda ilaahay ee cad yihiin ay yihiin kuwa ku soo ururay qur'aanka kariimka balse xuduudda ilaahay gaar ahaan kuwa ku lug leh jirdilka iyo dhiigga arrimaha dhiigga aba iyo diyada ay yihiin kuwa ku soo ururay qur'aanka kariimka meel halkaas ka baxsanna aan laga raadin karin daawade arrin kale oo isagana lagu dari karo arrimahaas iyaga ee xusan waa iyadoo ay jirto shubahaad macnihii kala duwanaansho aan wixii caddayn oo dabool iyo caad uu saaran yahay run ahaantiina qaacidada ka mida qawaacidka diinta islaamka oo ah inaan shubahaadka xuduudka lagu fulin wixii shubahaad gala meel layska dhigo oo halka la leeyahay dara alxuduud bishubahaat uu arrinkaasi yahay arrin macnihii aan tixgelintiisa leh oo wixii khilaafa iyadoo ay jiraan ilaa 2,500 iyo wixii ka badan oo masaa'il khilaafiya fiqhiga islaamka oo gala kala duwanaansho iyo aragti kala duwan aanay noqon karin arrimo macnihii lagu salaysiin karo shariicadda islaamka iskaba dhaaf shariicad xuduude waaweyn oo u baahan wax xubaal ah balse guud ahaan shariicadda islaamka ay xitaa ka mid tahay fiqhiga iyo fasiraaddu aan arrinkaas isaga ah looga dhigi karin asal ama qaacido wixii shubahaad galana meel layska dhigayo shubahaad gala macnihii caadcaad iyo madmadow uu muslimiinta ka galay iyo madaahibta iyo madaarista islaamka oo kala duwanaansho ay ku soo ururtay oo lagu qaybsamay ay noqonayaan arrimo fiqhiya ma garatay maqalka soo gaadhay balse aan looga dhigan karin arrimo loo cuskado xuduud iyo fulin cuquubaad iyo wixii la halmaaba jirdil iyadoo la ogsoonayahay daawade arrinkan rajmiga ah ee riwaayado laga dhigayo axaadiis nebigii loo nisbeeyey balse run ahaantii iyo nuxurkii ay xambaarsan yihiin magaca riwaayado yacni oraah la yiri farqi weynna uu u dhaxeeyo
wixii oraahda ah iyo wixii axaadiista ee ku kala duwan yihiin axaadiistu inay noqonayaan arrin laysku raaco oo caadcaad iyo madmadow aanu bulshada muslimku ka gelin riwaayaadkuna ay yihiin wax loo nisbeynayo laga dhiganayo inay axaadiis yihiin balse run ahaantii aanay axaadiis ahayn nebiga ka soo uruuray sunnadiisii iyo habdhaqankiisii balse ay yihiin arrimo nebigii loo nisbeeyey balse aan xaqiiqada run ahaantii wax run ah ama haba yaraatee aanu ka jirin arrinkaas rajmiga ana uu yahay arrin ka soo ururay oo ka soo jeeda salkana ku haya shariicadda yahuudda iyadoo bulshada yahuudda ee mu'miniintu ee arrinkaas isaga ah aaminsanaayeen ama ku dhaqmi jireen balse rajmigu shiidistu iyo dhagax tuurka la shiidaya qofka muslimka ee zaaniga ah ee muxsanka gaar ahaan aanu ahayn arrin ka soo jeeda diinta islaamka aanu haba yaraateena soo hadal qaadin arrinkaas isagaa qur'aanka kariimka iyadoo arrinkaa rajmiga ah ay isku raaceen culamo badan oo muslima in lagu naskhiyey lagu daboolay micnihii raadkiisiina halkaa lagu tirtiray markii ay dhacday soo degistii aayadda lagu magacaabo suuriyaanan oranin aayadda suuradda lagu magacaabo suurat annuur sidoo kale iyadoo laga hayo imaamkii weynaa ee abi xaniifata annucmaan oo ka mid ah madaahibta mid ka mid ah imaamyada iyo madaahibta ugu weyn madhabta xaniifadu madaahibta ama madaarista islaamka oraahdii ahayd kullu maa khaalafa alqur'aan laysa can rasuuli illah وإن جاءت به الرواية كل ما خالف القرآن ليس عن رسول الله وإن جاءت به رواية معنيه أراهداس إحنبار سنتهي داوديتهي وحو البو قرآنك خلافة كما سوتشيدو رسولك أما لو من نسبينك رسولك إلهي xitaa ama si kasta oo ay ugu soo ururto riwaayad laga wado riwaayadda xadiis loo nisbeynayo nebi maxamed naxariis korkiisa ahaate sala allahu calayhi wasalam in riwaayad kasta oo loo nisbeeyaa nebi maxamed hadday khilaafayso nuxurkii qur'aanka kariimka ah ee tahay arrin loo nisbeyn karin nebi maxamed halkaasna aan ka gocan karno aan ka akhrisan karno aan ka garan karno in riwaayaadka ku soo ururay ee laga dhigayo xadiiska iyo sunnada aanay ahayn kuwan waafaqsanayn la saan qaadi karin qur'aanka kariimka ee ka hadlay xadka zinada balse aan soo qaadin aanna ka faalloon wax la yiraahdo rajmi saasna arrinkaa rajmiga ah ee u hololeynayaan wadaadada soomaaliyeed qaarkood iyagooba aan afka ku dhifan laakiin la og yahay halka ay durayaan aanu u yahay arrin wax ka soo qaadaan lahayn iyo wax nas diiniya loo cuskan karo oo la isku raaci karo oo leh margaciyad diiniya balse uu yahay arrin ka soo jeeda hawada iyo rabitaanka gaarka ah arrimaha hawada iyo rabitaanka gaarka ahna aanay noqon karin wax bulsho soomaaliyeed oo muslima looga dhigo dastuur iyo shareecad iyadoo culummada islaamka oo ay ka mid yihiin daawade daarulqutni iyo ibn taymiya
iyo albani iyo maxamed abu zahra iyo yuusuf alqaradaawi oo geeridiisu dhoweyd saan ogsoonnahay iyo qaar kaloo badan ay run ahaantii dureen arrinkaas isaga ee rajmiga ah ay ka soo qaadeen inuu yahay mid baalmarsan diinta islaamka. saas awgeedna aanu noqon karin arrinkaas isaga ah rajmigu xad loo cuskan karo looguna fulin karo bulsho muslima ay ka mid tahay bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed. saas awgeedna la oran karo aragtidii wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqal insaanka soomaaliyeed ee arrinkaas isaga ah ku lug lahayd in sharciyo arrimahaas la saanqaada la sameeyo ee ku saxsaneyd iyadoo aragtidaas iyada ah laga duulayo inaanu jirin sharci ku arooro arrinkaas isaga ah isla mar ahaankaasna arrin lagu kala qaybsan yahay aan loo cuskan waxaan sharci ahayn wax nas diiniya oo dhan ilaahay ka soo degay aanu jirin iyadoo aan ognahay mar labaad ku celinayo xuduudda ilaahay ay yihiin xuduudda ku qoran qur'aankiisa kariimka ah balse aan wax dheeraada lagu dari karin. daawade waa anigoo ah khaalid xasan yuusuf ilaa intaan ku kulmi doono barnaamij kale ee soo socda. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.